wacan oo wanaagsan aqyaarta hawada inagala socota ay ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoraan oo barnaamij uu telefishinka qaranka iyo radio Muqdisho idinkaga qabtiri doonaan wararka macluumaadka qormooyinka iyo faalooyinka ee laga qoro dacallada adduunka iyo qisooyin fara badan ay idin kala socon doontaan barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoraan waa barnaamij toddobaadle ah oo aad kaga bogan doontaan arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhinaca siyaasadda dhaqaalaha arrimaha caafimaadka isboortiga iyo waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee maada iyo qosolka barnaamijkan oo si toddobaadle ah uu telefishinka iyo radio Muqdisho ay idin kala socon doontaan waxaa sidoo kale aad kala socon doontaan aaladda Facebook iyo social media ee warbaahinta qaranka anigoo Maxamed Nuur ayaana idin la socodsiin doono iyo bahda barnaamijka oo si fiican gacan uga geysan doonta toddobaadkan oo aan barnaamijkan daahfurayno waxa aan ku bilaabi doonaa qaybo badan oo aad muhiim u ah xilli adduunku uu si weyn u kala go'doomay marka loo eego isu socodka dhinaca cirka iyo isu socodka dhinaca xadadka iyo xuduudaha cabsi laga qabo fidista cudurka coronavirus majaaladaha caalamka ee wax ka qoray arrintan ku aadan haddii aan idin soo qabto wargeyska lagu magacaabo The Newsweek ee dalka Mareykanka ayaa cadadiisii soo baxday waxay wax ka qortay sheeko aad u xiiso badan markii ay guddoomiyayaal gobolada dalka Mareykanka ka mid ay isku dayeen si ay u xakameeyaan cudurka halista ee coronavirus fiditaankiisa oo ay shacabkuna kala fogeeyeen durbadiiba waxaa dhashay dibadbaxyo ballaaran jirada sida ay leedahay Newsweek madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa bilaabay durbadiiba inuu u beer jileeco dadkaasi oo ka cabanaya xayiraada in ay tahay mid ka badbadis hadalkaasi ka badbadintana waxaa markiiba farta ku fiiqay oo ka dhawaajiyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlayay dibadbaxayaasha qabsaday wadooyinka qaar ka mid magaalooyinka gobolada Michigan, Ohio iyo Minnesota ee dalka Mareykanka kuwaasi oo dalbanayay in la soo afjaro tallaabooyinka gurigaaga joog oo ay hirgeliyeen madaxda si loola tacaalo fiditaanka COVID-19 madaxweynaha oo u beerjileecaya walaaca dibadbaxayaasha ayaa diiday in uu cambaareeyo mudaharaadyadaasi maruu shir jiraa'id ku qabtay gudaha aqalka cad ee dalka Mareykanka waxaanu yiri qaar way ku fogaadeen oo qaarkoodna waa ay ku talax tageen waxyaabaha qaar ee dhacay ma ahayn wax haboon Trump ayaa yiri waxaan maleynayaa ugu dambeyntii ma dhacayso maxaa yeelay waxaan bilaabaynaa inaan isu furno gobolada si wanaagsan ayayna isugu furmayaan wargeyska Newsweek oo sifeynaya muuqaalka dibadbaxayaasha ayaa qoray dibadbaxayaasha oo xirnaa halku dhigyo ay ku qoran yihiin ka dhig America mid weyn mar kale iyo astaamo lagu taageerayo Trump waxayna ku baaqayeen in la qaado tallaabooyinka xorriyadda iyadoo uu jiro fiditaanka qaar ma taageersanayn tilmaamaha aqalka cad ee ka dhanka meelaha la isugu yimaado in ka badan 10 qof si loo xadeeyo fidista viruska warbixintaasina waxay ahayd warbixintii wargeyska The Newsweek oo ay ka qortay sheekadii xiisaha badnayd ee ku wajahnayd dibadbaxyada ka dhacay 3 gobol oo ka mid dalka Mareykanka sida Michigan, Ohio iyo Minnesota The Newsweek ayaana qortay haddii aan u leexdo dhinaca iyo wadanka Algeria oo jiraa'id badan ay ka soo baxaan waxa markiiba gacanteeda ay soo haabatay isla markaana si weyn ii soo jiitay sheeko aad u xiiso badan oo ku wajahan bisha Ramadaan ama soonka qofba sida uu yaqaano oo ay jirada alwatan ee dalkaasi ay wax ka qortay in ay shacabka dalkaasi u arkaan arrin ama kaag la yaab iyo
wax aan hore shacabka dalkaasi aanay hore u arag ay noqon doonto marka bisha Ramadaan la galo waqtigaasi oo ay dadku horaanta bishaasi ay dareemi doonaan isbedel ka bedelan bilihii hore ee sanadihii hore ee la soo dhaafay warbixintaasi oo ay qortay jaridda Al-Watan ee dalka Algeria waxa ay qortay in ay u tahay dhammaan su'aalo xanuunjinaya qoysaska dalka Algeria waxaana ay tahay xaalad aad halis u ah oo dhinaca caafimaadka ah iyo xayiraada lagu qasban yahay sida jaridda Al-Watan ay qortay habnololeedka iyo quutulyoomka ee qoysaska ayaa si weyn ugu duwanaan doona sida ay ahayd sanadihii hore Al-Watan oo wax ka qortay isbedelka nolosha iyo cibaadada dadka Algeria ayaa soo qaadatay sheekada cudurka coronavirus iyo faafitaankiisa halista sare wata si gaar ah masaajidyada oo aanan la furi doonin wax kala iibsiga suuqyada waaweyn iyadoo laga cabsi qabo in wasaqda iyo isu dhawaanshiyaha ay ka dhalan karto qatarta fiditaanka caabuqa corona Al-Watan ayaa sidoo kale qortay talo uu xal u arko oo ka imaanaysa bulshada rayidka iyadoo soo xiganaysa Hasiin Menawar oo ah madaxweynaha ururka ilaalinta cunnada iyo quutul daruuriga qaranka ee dalka Algeria ururkaasi oo loo soo gaabiyo al-amaan oo aaminsan in siyaasiyiinta saynisyahanada iyo culimada sare ee diinta islaamka ay si baaxad leh kaga hadlaan xaaladda si loo diyaariyo muwaadiniinta waxa laga yeelayo bisha Ramadaan waxay ahayd Al-Watan ee dalka Algeria majalada la yiraahdo oo ka soo baxda dalkaasi Algeria oo wax ka qortay waxyaabaha la yaab kale oo ay shacabka dalkaasi iyo muwaadiniinta wadankaasi ay dareemayaan xilliga bisha Ramadaan iyadoo uu jiro cudurka halista ah ee isumaatinka ku fidaya masaajidana si weyn loo xayiray si cudurka aan ugu dhicin dad yooga xilliga cibaadada wargeysyada lagu kala magacaabo The Telegraph iyo The Daily Sabah ayaa wax ka qoray isla sheekada la mid ah tii Al-Watan ay ku wajahnayd waxyaabaha ku cusub bisha Ramadaan oo ay sidoo kale shucuubta dunida muslimka gaar ahaan wadamada Pakistan iyo Sacuudigu ay dareemi doonaan jaridda The Telegraph ayaa qortay in dalka Pakistan uu bilaabay in durbadiiba uu qaado tallaabo uu kaga duwan yahay tii ay qaadeen dalalka kale ee islaamka sida dalka Sacuudi Carabiya oo gabi ahaanba sheegay in cibaadada xilliga bisha Ramadaan loo baahan yahay dadku inay ku qaataan guryaha balse wargeyskan sida uu qoray The Daily Sabah iyo The Telegraph waxa ay tilmaameen in culamaa u diinka dalkaasi Pakistan oo kulan la qaatay madaxweynaha dalka Pakistan kulankaasi ay ka soo baxday in la qafiifiyo oo qaar ka mid ah dadka loo ogolaado in ay meelaha isumaatinka xilliga cibaadada ay ku qaadan karaan waqtiga bisha soonka arrintaasi oo si weyn uga yaabisay dalalka kale ee dunida muslimka oo iyagu u arka in dalka labaad ee ugu badan dunida muslimka isla markaana Pakistan ay tahay dalka lixaad ee ugu dadka badan caalamka Telegraph ayaa qortay dawladda Pakistan waxa ay u halgantay xoojinta shuruucda kala fogeynta bulshada ee masaajidyada iyo goobaha kale ee cibaadada Pakistan waxa ay aad u soo dhaweysay baaqiyo uga yimid wadaadada si loo qafiifiyo xayiraada la saaray kulamada salaadaha ee masaajidyada ka sukow cabsida laga qabo isumaatinka uu sare u qaadi karo fiditaanka cudurka coronavirus wargeyskan The Telegraph oo sababeynaya sheekada
ayaa qoray in tallaabada loo qaaday bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed si sharciyada loo xadeeyo ee ka qaybgalka iyo tagista masaajidyada in aan ka badnayn 5 qof aan loo ogolayn inay masaajidadu ku dukadaan waxaana ay ka dhigtay dalka lixaad ee ugu dadka badan dunida waa dalka Pakistan sida jaraaradan ay qortay The Telegraph ay dhaxal siisay muuqaal xumeynaya Pakistan marka loo eego dalalka kale ee adduunka muslimka oo masaajidyadoodu ay xiran yihiin jaraaradan The Telegraph oo tusaale u soo qaadatay dalka Saudi Arabia iyo guddiga ugu sareeya ee diinta golahaasi oo ay ka mid yihiin aqoon-yahano sarsare oo ayagu ku booriyay muslimiinta adduunka inay guryaha ku dukadaan xilliga bisha soonka ama Ramadaanka haddii ay dalalkaasi u baahan yihiin dadka in uu kala fogaado muslimiintu waa inay ka fogaadaan isumaatinka maxaa yeelay waa waxa uu ka dhasho fiditaanka cudurka iyo caabuqiisa ee koronaha waana in ay xusuusnaadaan in dhowrista nolosha dadka ay tahay waxa ugu weyn ee loogu dhawaado Allah subhanahu wa ta'ala warbixinadaasina waxa qoray jaraaradaha The Telegraph iyo Sabaax waxaanu ku eegeynay waxyaabaha dunida muslimka gaar ahaan dadka islaamka ahi ay dareemayaan xilliga bisha Ramadaan iyadoo isumaatinka si weyn loo xayiray haddii aan u leexdo dhinaca iyo wargeyska The Washington Post ayaa qoray in hay-adda ugu qaabilsan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa daryeelka caruurta ee UNICEF ayaa weydiisatay lacag lagu qiyaasay $100 milyan lacagtaasi oo ay hay-addu ay sheegtay inay wax kaga